Hello dhamaantiin waan islaamayaa assalaamu calaykum fiid wanaagsan afur wanaagsan waxaa inoo soo gelayaa sheekhi السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waan islaamayaa afur wanaagsan dhamaantiin waan salaamayaa saxaabadiina iyo saxaabadaydaba waxaanu ku soo jirnay mawduuc taxanaa oo inoo ka hadlayay sheekh cabdiraxmaan shariif oo maraykanka jooga toobiga aanu ka hadlaynay wuxuu ahaa dhaxalkii rususha axaddii dhaweyta waxay tahay introduction caawa waxaan rabnaa inaan guda galno markaa si deeply ah qodob qodob labada qodob aan rabnaa inaan si fiican uga hadalno oo la dul istaago waxa weeyaan isbeddelka shacabka iyo xorriyadda mid shacabba guud ahaan iyo dhammaan mid shakhsiba insha allah marka su'aalo badan ayaan shiikha ka weydiinaynaa oo la xiriira waaqaca si uu inuu kugu xiro siday ahayd maxaan ku rahdaa dhaqankii ambiyada specifically marka haddaan introduce gareeyo waxa aynu ku kalifay asbuucii horena waa ka soo hadalay axaddii hore kana brief yar baan ka bixinaynaa inta badan waxaa isbarbar socda developmentiga dhinac walba wax soo saar shacab oo technical la xiriira aragti isku socod dad iyo barnaamijka diinta hadday marka kala gaabiyaan waxaa dhacda consequences xun cawaaqib xun baa yimaada matalan industrial revolution marka uu yimid waxa la hormariyey steam engine-ka electricity-ga radio iyo waxyaalo badan isla markiiba waxaa la jaanqaaday oo backlash uga yimid ama caqabadi uga timid qolyihii diimaha dhan walba ha ahaadeene oo markaa u arkay haddii traditional way of living laga tago in halaag dhacaya markiiba attack bay sameeyeen oo ay kaga falcelinayaan waxyaalahan cusub oo soo saa'iday marka mar walba way jiraysay arrintaas matalan Europe oo kale waqtigii industrial revolution kaniisaduhu waxay aamineen in dadkii farabaxay marka fadwooyin ku aadan revolutionkan gacanka wax soo saarka ku yimid ayay soo saareen ilaa ay soo istaageen boobku waa ultimate resource oo adduunka su'aalihiisa loogu laabanayo mana khaldama asagu waxa ay bixinayeenna wuxuu ahaa wax bilcagsi ku ah horumarka dadka ay soo saa'idiyeen sidoo kale ayaguna qolyaha islaamka ayaguna matalaya oo sidaasoo kale ka gaabiyey wax soo saarka cusub ayaguna fadwooyin bay soo saareen malaayiin bay wax weeyaan ku laayeen waxaasoo kaleeto marka shiikha waxaan doonaynaa in uu isugu kaayo xiro waaqaca asaga ah maanta ah iyo diinta aaraada diintu waxay ka qabto marka sheekh soo dhawow waxaad noo qeexdaa isbeddelka ambiyadu ay la timid caqabadihii ka hor yimid iyo kuwan maanta annaga maxaan ku rahdaa na haysta inay isku xirmi karaan ama isku xiran yihiin ama hal qolo oo taariikhda soo jiitamaysa in ay dabada haysatay ambiyada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله marka hore adiga ustaad maxamed calaawi iyo dadkeena daawanaya waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullah marka labaad insha allahu tacaala sidaad sheegtay waxaan sii wadaynaa un aragtideennii iyo aqoon isweydaarsigeennii aan bulshada isku dayaynay qaybo kala duwan inaynu marba wax uga iftiimino insha allahu tacaala markaad aan fiirino sidaan soo tilmaanay xalaqadii hore ambiyada ilaahay uu soo diriyay subxaanahu watacaala waxaa loo soo dirayay oo ahdaaftu ay ahayd inay marka koobaad khaaliq iyo makhluuq isku xidhaan ilaahay iyo bini aadamkiisa inay isku xidhaan
taa marka la samaynayo xaqiiq ahaan waxaa dhacaysa caqabado fara badan ayaa dhacaysa maxaa jira isku xirku ma aha oo keliya arrinta spiritualka ama arrinta diinta ah keliya ma aha waa arrinta xayaatada iyo nolosha ayaa muxuu ahaa qayb weyn ka noqonaysa saa darteed baa markay taa la yimaadeen oo ay dadka doonayeen inay mar walba isku xidhaan ilaahay iyo makhluuqu abuurtay rabbi subxaanahu watacaala waxaa jiray kooxo fara badan oo sooyaalka taariikhda ambiyadaas oo dhan ka hor imanaya oo diidayay kooxaha aniga markaan soo koobo waxaan u qaybiyaa 4 qaybood iyo qayb shanaad oo iyadu 4taa qaybood iska daba socota 4ta qaybood qaybta ugu muhiimsan waxaa la yidhaahdaa as-sulta siyaasiya qaybta sultada haysata siyaasadeed ee awoodda iyo madaxtinimada iyo maamulka haysata ama ha lagu sheego boqor ha lagu sheego ama ha lagu sheego markaa ra'iisul jumhuuriya madaxweyne ama ha lagu sheego muxuu ahaa jeef iyo caaqil iyo muxuu ahaa oday dhaqameed ha lagu sheego kooxahaasu waxay ahaayeen as-sulta muxuu ahaa oo siyaasi ah oo iyagu inta badan diidi jiray isbeddelka ay ambiyadu la imanayeen waa qolo weeyaan qolada labaad ee diidi jirtay waxa weeye oo qolada isku xirnaayeen qolada la yidhaahdo as-sulta diiniya qolada muxuu ahaa sultada diineed ee iyaguna ay qoladaas saaxiibada yihiin ama sida qur-aanku meelo tilmaamay saxaraha lagu tilmaamo ama ha lagu tilmaamo muxuu ahaa kahanaha lagu tilmaamo iyo niman muxuu ahaa khuraafa iyo wax kale ku shaqaysta laakiin waa sulda diineed oo iyadu mar walba xambaarsan inay ilaahay wakiil ka tahay subxaanahu watacaala waa 2 qolo weeyaan qolada saddexaad waxa weeye qolada maalqabeenka ah ama la yidhaahdo muxuu ahaa big corporationka oo iyaguna ah qolada ka faa'iidaysata nidaamka iyo barnaamijka jira oo iyagu dadka dhiigmeerata oo qofka la yidhaahdo laymaanka ama qofka shaqaalaha ah aanu ogolayn inuu si sax ah uu maaragtay u shaqaysto oo iyagu doonaya inay dadka iyaguna haystaan waa qolada saddexaad weeye qolada afraad waxa weeye waa qalabka warbaahinta ama qalabka muxuu ahaa macluumaadka gudbiya oo iyaguna 3daa qolo u shaqeeya 4taa qolo ayay ahaayeen 4ta qolo ee ambiyadu ay waxba ka dhaqaajin waayeen waxaa marka qolada shanaad ay tahay shacabkii guud oo inta fara badan isbeddelka iyo tagyiirka ama wax aynan horey u arkin ama horey u aqoonin iyaga laftoodu dhibsanaya 4taa qolana ay yihiin 4ta qole ee u haysa muxuu ahaa hoggaanka sidaa darteed iyaga lafteeda in badan isbeddelkan cusub iyo dadkan wanaagga u wada aynan in badan fahmi jirin ama ay diidi jireen 5taa qolo ayay ahayn laakiin 4taa qolo ugu muhiimsan xaqiiqatan waana 4ta qolo ilaahay mara fara badan uu ku tilmaamayo muxuu ahaa waqaala almala'u aladiina kafaruu min qawmi mar walba oo rasuul la soo diro ilaahay wuxuu odhanayaa subxaanahu watacaala almala marka mala'du waa 4taa qolo ishuwan weeye 4taa qolo isla socota weeye 4taa qole ayay ahaayeen qolada isbeddelka diidan qolada muxuu ahaa aan ogolayn markaad fiirisa 4taa qolabana maslaxa ayaa ugu jirta nidaamkan inuu sidan ahaado wuxuu inuu noocan ahaado danbaa ugu jirta isbeddel hadduu yimaado tusaale ahaan waxaa dhacaysa dadku markay ilaahay subxaana watacaala si toos ugu xidhmaan isbeddelka kale la soconaya waxa weeye inay soo baxayso in hadday noqoto sulta siyaasiya in la yidhaahdo ninkani muxuu ama qofkani muxuu noo hor joogaa xaq baan u leena inaan wax dooranno inay dadku ay waxay rabaan doortaan inuu qofkani meesha ka tago taa marka ma yeelayaan ta kale soo baxaysaa waxa weeye hadday dadku ay muxuu ahaa ay isbeddel u yimaado kooxahan diineed ama magacan diinta iyagu haysta iyaga laftooda intay suldadan la shaqaysanayay ama hoggaankan la shaqaysanayay iyagu u ahaa aaladda dadka muxuu ahaa u tidhaahda boqorku waa sax warkiisa ha la qaato lagama hor iman karo waa oo dadka xagga u kaxaynaysay iyaguna meesha way ka baxayaan waxaa la odhanayaa may arrintaas sax ma aha waxa weeye annagu iraadaan leenahay xor baan nahay waxaan rabnaa inaan qofkaan rabno dooranno qofkaan rabno oo meesha uu ka tago ictiqaadka laftiisa oo annaga soo tilmaanay xor baan u noqonaya waxa aan rumaynayo taasuna marka meesha way ka baxaysaa qolada saddexaad waxa weeye markuu ay timaado isbeddelku waxaa soo baxaysa in la yidhaahdo dhaqaalaha laftiisa islaamku aa ka odhanaya kay laa takuuna duulatan bayna alaghniyaa inuusan dhaqaaluhu noqonin wax koox yar gacanta ugu jira oo kooxdaas siday rabta u maamusho inuusan noqonin marka waxaa la odhanayaa furaska waddanka waa in loo sinaado shaqada waa in loo sinaado ganacsiga waa in loo sinaado waa in dadka horumarkooda loo sinaado taasay qoladaasuna ay diidaysaa 3daa qolo hadday meesha ka baxdo iclaamkii ama kii warbaahinta ee isagu iyaga u shaqaynayena
shaqalaan buu noqonayaa maxaa jira bulshadiiba si xora u fikiraysa oo xoroobaysa sidaa darteed ayaa isbeddelka mar walba ay ambiyadu la imanayeen waxaa diidi jiray afartaa qolo oo iyagu ahaa afarta qolo ee bulshada systemka ama barnaamijka ama nidaamka markaa jira ku danaysanayay maantana waad u jeedaa afartii qolo ayaa diidan isbeddelka yacni waa tahay aad baan u fahnay in sidaan u fahnay waxa weeyaan in guruubyadaas aad soo sheegtay 1 iyo 2 iyo 3 sababaha ay u hortaagnaayeen inay ahayd danahooda iyo jeebkooda aysan ahayn for the good of all yacni dadka oo dhan wax markaa u faa'iideynaya isbeddel wada taabanaya shakhsi walba may ogoleen waxay rabeen inay dhiig miirtaan waanu fahnay okay marka sidaan soo sheegnay adduunku dynamic weeyaan maaha wax static ah subax walba waxbaa soo kordhaya subax walba waxbaa ibaanaya marka isbeddelkaas bulsho ama dhaqaale ha ku yimaado ama technology ha ku yimaado ama isku socod iyo siyaalo kale ha ku yimaado iyadu diintu xaggee iska taagaysa oo ay ka taagan tahay isbeddelka shacab oo dhan walba ah su'aal fiican weeye diinta islaamku waxay u soo degtay waxa la yidhaahdo maslaxatul insaan qofka bini aadamka dantiisa iyo maslaxadiisa ayaa u soo degtay waa qodob weeye qodobka labaad ee kale diinta islaamku waxay og tahay oo ilaahay soo dejiye og yahay in uu koonkani isbedelayo oo isbedelku waa dabiica kawniya weeye waa dabiica insaaniya weeye inuu bini aadamku iyo koonku isbedelayo maxaa jira waxa weeye markii ilaahay uu abuuray koonkan wuxuu bini aadamka uga dhigay khaliif wa ansha'akum من الأرض واستعمركم فيها والله ذلك إذن كأبوري كدبنا إذن فصحي أو إذن أمر إلى كون كان عمرتان كونك إلا عمر سال شبتي وحال الربعي وحلا صو صار أقوم بالله صو صاريا عقلي بالله صو صاريا نقارا الله صو صاريا محوها ما رفر مقالوين إذن أو محوها بضو دشوط لا يدسيو أيام الله سمينيا عرك أيام التجايا ضيح على آذية وحاصل مركب وإسبدل دينامي والصعوني ويا إسبدل كاس وحال الدنيا كلية إنه أشقيه لصالح الإنسان وقفك بني آدم كآخر يسي الدنيا إنه سقول حلو أيام الدنيا سداسين الرسالات إلهي أي هاين سي مركب تاع حقيقي جنو فرصة إلهي وحينفرض الأمر هي إن عقلك إيا مسكحة لغا شقيسيو مركب سا قرآنك إنت أصو آيات وحاكو جرتا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين يعني الصعب الأركان وكنت تدبره وكف فكرة الأركان أو كونكن هي كجرته وحكو جرته أو كلاته أو إن بدل القرآن ودرج لنا أو إن فريا إن مر والب هو كونكن الله أبو سبحانه وتعالى بديه يبوره يهودي أنت بقى لو فكر كاس ما هو كلنا في يعني مهاجر في أنت وحوير مكانيسه مركز تفكيرك هو محي وإن عمق أنت علم الله يشاء لا تحجله oo wax laga soo baxo oo wax laga soo saaro ayaa la doonayaa islaamku marka risaalo ahaan waa diintii ugu dambeysay wasiiqadii ugu dambeysay xagga rabbi ka timid weeyaan subxaanahu wa tacaala waxay u samaysan tahay qaabkeeduba waa muruuro iyo dabacsanaan iyo layl fara badan bay u leedahay waxay la saan qaadaysaa التطور العلمي الإنساني إنسانك horumarkiisa cilmiga ay la saan qaadaysaa insaanka muxuu ah fikirkiisa iyo caqligiisa cusub ayay risaaladu la saan qaadaysaa risaalo meel ku xiran ma aha tusaale ahaan haddaan bixiyo salaada aan tukanayno aniga iyo adiga oo Norway iyo Mareykanka kala joogna iyo qofka jooga muxuu ahaa Yurub meelaheeda kale iyo qofka jooga Australia iyo Canada iyo caalam carabi iyo caalam islaami qaybihiisa kale isku si baan u tukanaynaa qofkii jooga 1000 sano ka hor iyo dhow maanta isku si baan u tukanaynaa inay marka isbedesho uma baahna salaadu waxa isbedelaya laakiin qaab nololeedkii qaabkii aan u noolay mar hadday isbedesho waxaa muhiim marka inaan fiirino risaaladeenu qaabkan aan u noolahay qaab ay muxuu ahaa dhiiri gelinayso ma tahay mise waxay oranaysaa kaliya waagii ay soo degtay haddii lagu socday muxuu ahaa faras iyo dameerka waxaan ahayn oo shaqaynaya ma jiro maysidaa maaha marka risaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa risaalo tadawurka insaanka la saan qaadaysa oo doonaysa hadday soo kordhaan tusaale ahaan وثائق وبني آدم كوشي وحقوق الإنسان كإلالينيسا رسالة الإسلام كو حي أورانيسا أنغونا قيبان كنا إن حقوق الإنسان كإلالينو markay soo baxeen muxuu ahaa ummado wax la yadadka laga muxuu tabar badan yahay ama laga xoog badan yahay oo la yiraahdo aqaliyadka minority-ga xuquuqdooda in la ilaaliyo islaamku wuxuu yahay risaalada ilaahay maxaa jira waxaan sheegnay bilowgeedii danta bini aadamka u timid
wuxuu u soo baxaya oranaya anaguna kuwa ugu ilaalin badan idinla wuxuu ku jira wasiiqada ayaan nahay hadduu soo baxo wax oranaya alcadl al-insani bini aadamku waa inuu danta guud ee nabadda ka wada shaqeeyo islaamka iyo risaaladiisa waxa weeye wayjanaxu muxuu ahaa la salmi fajrax laha hadday dadku nabadda iyo nabadgelyada qaataan oo ay soo baxaan ururo nabadda iyo nabadgelyada iyo nabadda in la faafiyo ka shaqeynaya islaamka iyo muslimiintu waa kuwa ugu horreeya inay noqdaan ayaa la doonaya marka risaaladan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyada ayaa waxay tahay risaalo oo muruuni ah waa risaalo la soconaysa kownkan iyo tadawurka caqliga insaanka la soconaysa oo la saanqaadaysa naskana waxaa ilaahay ugu talagalay inuu fasirmo oo la fasirmo zaman walba iyo xilli walba qof walbana waxaa la doonayaa mujtamacaadka iyo bulshooyinka muslimiinta ah cid waliba risaaladan ilaahay subxaanahu wa tacaala inay fasirto fii ufuqi macrifati zamaniha wa bii'atiha waqtigaa ay joogto tafsiirkeeda iyo ufuqeeda inay siiso ayaa la doonaya marka waxaan rabnaa waxa weeye tagyiirka xataa aan raadinayno naska ilaahay qur-aanku waa kiisii weeye laakiin ma waxaan ku khasbanahay tafsiir oo la saaray 700 sano ka hor 800 sano ka hor oo oranaya tusaale ahaan jinku qofka wuu galaa kadibna wuu suuxiyaa kadibna wuu ka dul hadlaa markaasaan ku khasbanahay maxaa jira waaga culimadu sidaa lahaayeen waxay arki jireen qofkan inuu sooxo ama uu qayliyo mayna fahmi jirin ama ma fahmi karin sababta uu qofkan u qaylinayo oo ah chemical imbalance maskaxdiisa waayirada ku jira inay isu dheelitirmi waayeen sababtaa inay tahay qaylada iyo suuxdintu mayna fahmi karin sidaa darteed ma tafsiirkaasaan ku khasbanahay mise waxaan oranayaa may sidaa ma aha arrintu marka waxaan haynaa waxa weeye tadawurka iyo tagyiirka aan raadinayna ee ka hadlaynaa waxa weeye risaaladan ilaahay iyada ayuuba alla ugu talagalay inay ilaa qiyaami saaca socoto mar hadday sidaa tahay waxa weeye isbeddel kastoo yimaada way la saanqaadaysaa mar hadduu bini aadamka dantiisa akhri adduunba uu ka talinayo waa tahay aad baanu u fahanay wax badan baa meeshaas ka soo baxay haddii aan soo aruuriyey commentiska iyo aaraada aan intaan meeshaan aan wax ku xiriiraynay ama shuyuukh kala weydiinaynay inta badan dhalinyarada weliba soomaalida su'aalaha mar walba ay isku soo yani ku soo celcelinayaan oo isweydiinayaan waxa weeyaan qaarna meel baa lagu xayiray oo waxay leeyihiin annagu xadkaasaa diintu noo jeexday oo ma gudbayno hadday indhala'aan ay nagu amadhay waa qaabka ilaahay noo doonahayo meel loo dhaafo male waa inaan ku qanacnaa saasaa ilaahay noogu talagalay qaarna markii limit loo sameeyey oo la yidhi maskaxdaadu halkaa ma dhaafi karto intaa wixii ka dambeeya cadaab baa shulub odhanaysaa waxay yidhaahdeen maya anugu diin hal albaab laga soo galo oo qol yaroo seel oo 4 gees iska le'ega ima hayn karto anigu waxaan doonayaa inaan la jaan qaado caalamka taa marka waxay keenaysaa mawduuca labaad oo ah xorriyadda in qofka bini'aadankaahi uu wax soo saar yeesho waxa ay ku imanaysaa in uu fikirkiisa gaarka ah kiciyo oo dhaqaajiyo oo ka shaqaysiiyo oo wax la yimaado marka fikirkii haddii la xadeeyey oo la yidhi caqligaagu meelo badan inuusan wareegin waa qodob diini ah oo sheekh hebel iyo sheekh hebel baa sidaa yidhi waxay keenaysaa qofkii bini'aadanka inuu dib u dhaco haddaanu hadda taariikhda dib u laabanno diyaaradda birta laga samaynayaay wax samada ka soo degay ma aha waa wax ciidda ku jiray waay laakiin waa inay dad soo baxaan oo birtii ciidda ka soo saaraan dad kale waa inay si kale u sheebgareeyaan oo ka dhigaan wax yani aerodynamically fit ah hawada u duuli karta yani guri ma duuli karo bir ka samaysan laakiin haddii loo sameeyo qaab uu hawada ku mari karo waa la bahal keenaya labadii shakhsiya oo u horreeyey waxaa la yidhahdaa Wright brothers aabahood wuxuu ahaa Christian devout yani qof yani diin ahaan fundamentally xag jira wuxuu yidhi inaad duushaanba haddaa isku daydeen oo ah yani awood ilaahay gaar u leeyahay oo noolaha qaar ugu talagalay inay duulaan qaar kalena aysan duulin
ayaad ku dhacdeen oo waxa weeye ilaahay baad challenge garaynaysaan haddaaba isku daydeen inaad maxaan ku rahdaa duushaan aidiyadaas marka ma duugoobin oo innaga maanta waa ina dhex taallaa maa uriikum ilaa maa araa baa qola halkan la fadhida oo qofna dhaqaaqi waay kumanaan kunna halkaasaa lagu xaraystay meeshaasay ku jiraan adduunkiina waa loo soo koobay waxaa la yidhi meeshaan meel anfacaysa maaha waxa way dhaqsi in looga tagaa waay qaarkoodna waa fadadeen oo waxay yidhahdeen aniga meel yani iga matalayso ma jirto diintani marka xorriyadda diintu xaggee ka taagan tahay maxaase yani xad u ah qofka bini'aadanka yani xorriyaddiisu intay ku kooban tahay guud ahaan xorriyadda diintu xaggee ka istaagaysaa su-aal aad u fiican weeye waxaan u malaynayaa inaan haddana sheegnay bilowgii xalaqadeeni horena aan ku tilmaanay qayb ka mid a islaamku waxa ugu qiimaha badan waxa weeye tusaale ahaan qofku iimaankiisa wuxuu rumaynayo waxa uu rumaynayo hadduu xor u yahay inuu fikiro xor buu u yahay inuu wax soo saaro xor buu u yahay waxaan rabaa marka si kooban marka saa u idhi inaan u qaybiyo xorriyadda laba qaybood siday dad fara badan oo xorriyadda ka hadla ay u qaybiyaan xorriyadda waxaa la yidhaahdaa mid waa xorriya maadiya waa wax la taaban karo weeye oo tusaale ahaan waxa weeye qofku inuu uu meel dego meeshuu rabo inuu dego inuu meeshuu rabo u safri karo waa wax la taaban karo weeye waa wax loo jeeda weeye waa tusaale ahaan weeye midna waxa weeye waa xorriya macnawiya waa waxaan la arki karin aan loo jeedin laakiin la arkayo midhaheeda ama natiijada iyo outcomekeeda la arkayo waxa weeye qofku wuxuu rumaynayo qofku ra'yigiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa inuu ka shaqaysiiyo qofku fikrigiisa inuu waasiciyo oo uu in fara badan uu ballaadhiyo qofku inuu maaragtay muxuu ahaa aragtidiisa fikrigaas ka timid uu soo bandhigi karo oo iyaduna tii maadiga qayb ka soo galaysa xorriyaddu labadaa nooc bay u qaybsamaysaa taan hadda markaan rabno waxay ila tahay inaan yaro doonayna inay tahay midda macnawiga oo ah xorriyatul ictiqaad waan ka soo hadalnay qofku inuu xaq u leeyahay cidda uu ku qanco inuu rumeeyo laakiin waxaan rabnaa inuu qofku markay saa noqonayso uu baxthi sameeyo inuusan laablakac wax ku rumaynin inuusan taqaliid iyo indhoola'aan wax ku rumaynin isaga raacin inuusan reaction iyo maaragtay xanaaq dartii uu wadci qaa'ima ama dhibaato jirta maanta darteed inuu yidhaahdo wallahi muslimiinta islaamku sidan uu wuxuu yahay noocanay muslimiinta samaynayaan marka islaamka inuusan ku halbeegin inuusan ku qiyaasin habdhaqan xumada maanta muslimiinta in badan oo ka mid ay samaynayso inuu intuu daraaso sameeyo kadibna daraasadaas si cumqa u sameeyo si xorriyada u sameeyo si furnaana u sameeyo kadibna qanaacadiisu waxay gaadhsiiso uu ku qanco faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur afa anta tukrihu nnaasa xataa yakunuu mu'miniin laa ikraaha fi ddiin muxuu lasta calayhim bimusaydir inamaa calayka albalaag intaasna waa qur'aan ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed oo dadka khasab kuma lihi nebi maxamed oo adiga inaad dadka wax gaadhsiisaa lagaa rabaa qofkii oo khiyaarkaaga alla ku rumay ama ku did waa qofka ayaa lala hadlayaa innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa nabiga ilahi baa lagu leeyahay sala allahu calayh waali wasalam marka waa xorriyat ictiqaadka waka fikrigii baa ku yimid waxa weeye waxaan isweydiinaynaa qolooyinka fikriga diidaya iyo in la fikiro waxaa caan ah inkastoo dee aan ogahay taariikhdeenna horeba dad fara badan oo mufakiriina oo fikira in lasoo gaalaysiiyey in kutubtoodii la gubay in qaarkood la laayay mana aha oo keliya inay sameeyeen christianity iyo diimaha kale muslimiintuna way sameeyeen arrintaa laakiin kitaabka ilaahay waa cagsa daalika kitaabka ilaahay arrin ka duwan weeye waa inaga hadda tilmaamaynay ilaahay intaa wuxuu ku dhiirigelinayaa makhluuqa bini aadamka awalam yatafakkaruu ma fi malakuuti samaawaati walard ilahay wuxuu leeyahay inna fi khalqi samaawaati walard wakhtilaafi alleyli wannahaar laayaatin liqawmin yacqiluun marka inuu qofku fikiro oo qofku uu kownkana ku fikiro tafkiir iyo wax soo saarna uu ku fikiro waa arrin diintu ay dhiirigelina diintu ma xakamaynayso diintu ma diidayso waxaa kaloo la yaab loo hadda tilmaantay waxaa tiri birta qur-aankeena waxaa ku jirta suuratu alxadiid suuraddii birta markaas allah wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala wa anzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wa manaaficu linnaas bir baan soo dejinnay birtaas ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala bir baan yacni birtaa waxaa ku jira wax bini aadamka faa'iide u leh iyo wax bini aadamka khasaaro u leh labadaba waxaan ognahay maanta hubabka bini aadamku isku baabi'inayso bir baa laga sameeyey bini aadamku waxa ugu badan ee uu ku kala gooshayo ama isugu tegayo ama uu ku wada hadlayo ama hadda aan iska arkaynana bir iyo macaadin baa laga sameeyey saa sheegteena waxa weeye
dhulkanay ku jirtaa qaybo badan oo ka mid ah in la soo saaray u baahan tahay ilaahay marka inoo tilmaamayay micnaheedu ma aha waan kuu tilmaamay dhulka waad maaragtay tilmaanka kaliya markiiba aad iska helaysaa may waan kuu tilmaamay ka shaqaysii caqligaaga cilmi baro dhulkan baa ilaahay markuu ku lahaa aadam wacallama aadam alasmaa'a kullaha asmaadan la baray aadam cali iyo xasan iyo faaraxi ma aha yani aadam waxaa la baray oo la baray asunan alkawniya kownkan iyo qaabku u shaqayn lahaa iyo qaabku wax uga soo saaran lahaa iyo qaabku oola falgeli lahaa marka cid walba oo ka soo horjeeda arrintaa iyada waxaysan si dhaba u fahmin risaalaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaysan si dhaba u fahmin waxaana rabaa inaan ku daro hal arrin yani oo aan doonayo inay kaftanna tahay xaqiiqana ah inaan celcelin u baado arrintaas waxa weeye sideedaba isbeddelku kooxihii aan soo sheegnay ee iyagu danta watay ee maslaxada watay waa gooni qofkan xataa iska caadiga ah isbeddelka ma yaqaano wuxuuna qofkuna markuuna aqoonin marka la yidhaahdo war waxaan armay sidana ku fiican tahay ama war waxaanu sidan si ka fiican baa jirta weligii ma maqalmana uuna arag wuu kula dagaalamayaa marka waxaa jirta qaacida caanka ee la yidhaahdo almaru caduwu lima jahil qofku wuxuuna aqoonin jaahil buu ka yahay sidaa darteed baa isbeddelka ma sahlana marka in lagu celceliyo oo dadka lagu celceliyo oo caqligooda kor loo dhiso oo tafkiirkooda kor loo qaado ayay u baahan tahay markaan isbeddelka ka hadlayno isbeddelkuna waxa weeye hadda waxaan rabnaa inaan su-aal meeshii aan ka soo dhex saarno majaalaadka ama qaybaha isbeddelka ah een hadda rabno inaan ku tallaabsanno kuwee ka mida laakiin waxaan rabnaa isbeddel sidiisaba haddii xataa lagu marka hore ee isbeddelka la raadinayo lagu yara khasaaro ama midhihii la rabay la gaari waayo waxbaa laga bartay sidaa darteed mar walba isbeddelku waa muhimo waynu u baahannahay waan doonaynaa waxaan ku soo khatimayaa kelimadan hadda aan ka hadlayna isbeddelka iyo caqliga in laga shaqaysiiyo sheekh maxamed ghazaali kelimad la yaab buu leeyahay wuxuu yidhi tafkiirkii hadda aad sheegaysa weeye ana laa akhsha cala alinsaani aladii muxuu ahaa yukafir wa in dalla anu cabsi uma qabo oo cugdo kama qabo insaanka fikiraya ee caqligiisa ka shaqaysiinaya ee si dhab ah muxuu ahaa si xeel dheer oo qodo dheer maankiisa u furayo u miiraya qofka cugdo kama qabo hadduu raba ha baadiyoobo maxaa jira liannahu sayacuudu ila alxaq xaqu usoo noqon doonaa in badan oo bini aadamka si dhaba u fikirtayna ugu dambayntii xaqi usoo noqotay wuxuu li walaakin akhsha cala alinsaani aladii laa yufakiru wain ihtada waxaan cabsi u qabaa insaanka aan fikiraynin oo caqligiisa aan ka shaqaysiinaynin oo caqligiisa maankiisa aan furaynin ee meel kaliya ku dheggan insaankaasaan cugdo u qabaa maxaa jira liannahu sayakuunu kalqashati fii mahabbi riix qofkaas waxa weeye waa baarin oo meel dabayli ka socoto la dhex dhigay marka baarinta dabayshu ama caleenta dabayshu marba dhan bay u dhaqaajinaysaa dhan bay muxuu ahaa u qaadaysaa qofka aan fikiraynin marka wuxuu noqon marba cid baa intay wax ku shubatay raranaysaa laakiin qofku markuu fikirayo wuxuu odhanayaa war waxaan la ii sheegayo ma sax baa mise waa khalad ii yara kaadi saasuu odhanayaa waa mid alla lahaa ilaahi subxaana watacaala aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana ulaa'ika aladiina hadaahum allahu wa ulaa'ika hum ulul albaab kuwa caqliga leh ee fikiraya ee garashadoodu ay gaadhsiisay warka inay kala saaraan oo markay wax dhegaystaan kiisa loojiga u muuqda kiisa caqliga iyo diinta la saan qaadaya kiisa dani ku jirto iyo kan aan micnaha lahayn kala fahmi kara kuwaa weeye kuwa caqliga u saaxiibka ah ee albaabka iyo muxuu ah garashada leh kuwaa weeye marka tafkiirka diintu way dhiirigel ma xayirayso laakiin waxaan doonaynaa dadku inay fikiraan iyaga oo xor ah inay wax akhriyaan iyaga oo xor ah inay wax bartaan oo wax baaraan iyaga oo xor ah inay cilmi faro inay wax soo saar ummadda dani ugu jirto raadiyaan iyaga oo xor ah sidaasaan doonaynaa yani ما شاء الله aad baan u fahnay I think in dadka dhageysanaya iyo kuwa dhageysan doona marka ay meel kale kula kulmaan in ay wax badan iska weydiin doonaan I think su'aasha u dambaysa aan ku weydiinayo waxa weeye su'aal gabdhaha dhalinyarada ay i weydiiyeen haddaanan ku weydiinaan dambiilo noqonayo waxay yidhaahdeen gabdhuhu dabcan markaas waxay u hadlayaan kulligood bay u hadlayaan waxay yidhaahdeen annagu mar walba shacabka haafkiisaan nahay populationka qayb ka mid aan nahay dee maskaxda ilaahay nin siiyana annagana waa nala siiyey
meelo badan oo wax ka soo saari karana way jiraan horumar badan oo aan samayn karo way jiraan laakiin waxaa moodaa in loo dhigay annaga nolosheenii in la yiri maxaan ku yidhaahdaa gurigaasaad ku xabisnaanaysaa sida wax loo kariyaad baranaysaa iyo sida saygaagiyo ninkaaga yani nolosha kula qaadi doona ugu darsan doona loo qanciyo adiga qanaaca ma lihid laakiin adigu inaad qancisaay inaad barataay waa waxa guriga lagugu haynayo hadhowna saas kale gurina lagugu wareejinayo marka wax soo saarkana laga rabaaba yani inuu ubad u egyahay guri ka gurina waxa weeyaan uu socdaalka nolosha iyadu dhanba uu ku kooban yahay aanan meel kale taabanaynin marka de annagu waxaan u aragnaa marka in half populationkii shacabkii in la curyaamiyey marka gabdhaha maxaa uga jawaabaysaa taa su-aal aad u fiican weeye gabdhuhuna xaq ba u leeyahay su-aasha inay isweydiiyaan aniga marka intaana ka jawaabin waxaan rabaa gabdhuhu inta badan dunida half way ka badan yihiin mujtamac walba oo meel degan gabdhuhu half way ka badan yihiin ama yani qayb ahaan marka laba loo qaybiyo rag iyo dumarka badan inta badan bulshooyinka yani taa marka wayba ka badan yihiin ba half midda labaad ee soo baxaysa waxa weeye insaanka laga xoraynayo kooxaha aan soo sheegnay sultadan siyaasadeed ee ku haysatay xaqdarrada insaanka qofka biniaadamka ah laga xoraynayo wadaadkan magaca diinta wata diintu dooni ha ka yimaado isaga laftiisu noqday albawaaba albaabka laga galay diinta iyo ilaahay noqday dadka laga xoraynayo ambiyada inay ka xoreeyaan ay u yimaadeen muxuu ahaa kooxda ganacsatada ah maalqabeenka ah ee corporate-ka ah iyaguna doonaya kaliya in iyaga loo shaqeeyo uusan qofku dadka laga xoraynayo miidiyaha wareersan qaybo badan ay ka mid yahay miidiyaha iyo qalabka warbaahinta ee laga yaabo in xataa wadaadku adeegsanayo in fara badan aan xaqaa'iq soo gudbinaynin dadka laga xoraynayo ayay horta gabdhuhu ka mid yihiin waa qodobka koobaad wey qodobka labaad rusushu dadka ay u yimaadeen dantooda iyo maslaxadooda ayay gabdhuhu ka mid yihiin waa qodobka labaad weeye qodobka saddexaad gabadha iyo wiilku waa isku mid tamaaman 100% markay timaado النظرة الإسلامية أركتيد الدينية حق ربي كتب سبحانه وتعالى واسكم مدويا سدا درته وحول بقى أورانيا قفك الدمر كأهونيك ويكلي ذاتها قفك الدمر كأهونيك ويكح منتهي قفك الدمر كأهو محوها قيم كإنسانية هي شرفت إنسانية أنك ليه مرها وحول بقى أورانيا وحي دوني هل هو وجاهلية ألبست بثوب الإسلام qodobkan lagu soo celceliyo oo la yiraahdo gabadhu waa half waa nus aqligeeda nusa nafteeda nusa ayadoo dhan baa nusku diina wax ka jira ma jiraan aan dhameeyo waanu iman doonaa arrinta oranaysa marka way ka liidataa ninka waxa weeye waa jaahiliyatun ulbisat fi thawb al-islam وجاهليتي وإسلام ويمد إنه ذاتك كحرية أو لهوينة شات الدينات ويا وحنكو حلو تصار كلاته سعيد ذاتك سصح أنا سلا فهمنا كدمر كما أهلك وحنا الملك ما كحلو تصار أهان تاريخ لأنه وح صومرته ظلم فربنا أو وح صومر تاريخ لأنه سياسة مرة فربنا ظلم جا سياسة الدين باللهوية أو مد أهين أو لبع أهين أو صدح أهين أو نفر أهين سلطات وظالمين ayaa waxa la huuyay diin markaas waxa laga dhigay inay iyagu yihiin khaliifata Allah fi ardihi ama khaliifata rasuulillah sida darteed baa waxaan rabaa tanna waxa weeye waa dhulmi fara badan oo bulshada qayb badan lagu soo hayay oo dumarkana lagu hayo magac diineed la huuyay islaamka iyo rasuulkii uu soo diray ay bari ka yihiin weeyaan waxaan u imanaynaa marka su'aasha ku saabsantii ahayd والنص حق مقطع مديده حنو مالينيا مسألة وحاول ذاتك كشافية أو كهضي عبد القادر كشكا علماء فربضان أو مسلمين أو صومالي أو كوان صومالي هنا ويكهد له إيه أنا مركا كفتنا الرواينا إذن لو داو تاريخ دي هراء مسلمين تا ولبا قرون تيلو أورنجل لو بحية صدح دي قرني أوه الرئيسي أيان كم إذا علماء دي مسلمين تا واقع جوغي أيو نما سؤال ويديه وحكيري قبل هدي قعنتن لقى جويو يعني كفك هدي هلك لو إلا جويو هلك هدي إلا جويو مقتاد وايم مثال مركا واحد هذا واشان يلا باطل
inta haddii la jaro haddii intaan la jarana waa 25 marka waa 50 weeye markaasaa wuxuu ku yidhi iyada dhan haddii la dilana markaasay yidhaahdeen waa 25 markaasuu yidhi waxaad ileedihiin labadeeda xubnood iyo nafteeda dhan baa isku qiimo ah miyaad ileedihiin ninkaas marka wuxuu adeegsaday caqli sax ah quraankana waafaqaya intii la hormarin lahaa ayaa waxaa la yidhi warniyaha waa caqligii ibnu culaye iyo hebel iyo muxuu rabiicatu ra'yi oo caqligoodeena dhaafiya wax quraan oo sheegaya gabadhu in ay muxuu ahaa konton tahay ninkuna uu boqol yahay ma jirto wax xadiida oo nabi maxamed ka asaxay oo sheegaya gabadhu inay tahay konton ninkuna uu boqol yahayna ma jiro intaa marka waa sidaa mas'alada ku imanaysa naaqisaatu caqli wa diin xadiidka lafteeda dad fara badan baa dood geliyay aniguna dadka dooda geli baan ka mid ah laakiin waxaan rabaa inaan si kale dadka aan ugu dhigo aniga iyo adiga hadda iswaraysanayna hadduu ilaahay amar ina saaro oon amarkii fulino amarkii aan fulinay ma kamaal iyo wanaag buu inoo keenayaa mise nuqsaan iyo liidid buu inoo keenayaa adaan raba inaan su-aasha kuu soo celiyo aniga adigu haddaan go'aan gaaro maya amar buu ilaahay ina siiya ka soo qaad haddaanu fulino amarkii aan fuliye marka ma wanaag baan ku helayaa iyo darajo mise hoos baan u dhacayaa maya waxaad ku helaysaa darajaad ku helaysaa kor baana u kacaysaa lianno ilaahay adiga ku abuurtay oo yidhi yani arraxmaani arraxiimi yani rixim waa uurka hooyada soo maaha yani waa meesha hooyada ilmaha ku hayso ilaa uu ka imaanayo waa naxariis ilaaha saa sheegtay yani u malayn maayo in aniga adigu haddaanu amarkiisa fulino in aanu afgembi u dhacayno anu ma qabo okay intaa usoo socda marka waa inta qolyahan oranaya marka gabadhu waa naaqisaatu diin tusaale ahaan baan rabaa yani diinkeedu waa naaqis qolyaha oranaya gabadha haddii la yidhi markay caadada shahriga a qabto ha soomin ama ha salaadin tusaale ahaan haddii la yidhi oo amarkii ay qaadatay oo ayna soomin oo ayna salaadin maxaa jira amarkii ilaahay bay fulinaysaa amarkaa ilaahay ee la fuliyey ma nuqsaan iyo liidnin buu keenayaa mise saramarin iyo wanaag buu keenayaa saramarin buu keenayaa sidaa darteed cid walba oo odhanaysa gabadhu ninka way ka caqli yar tahay gabadhu ninka way ka diin yar tahay gabadhu ninka way ka liidataa bilowgii horaan ku celinaya waxa weeye waa jaahiliyatun ulbisa bithawbi lislaam waa jaahiliyad la huwiyey labiska iyo dharka islaamka shaqo kuma laha diin waxaan ku daray hal arrin oo kaleeto muhima waxaan rabnaa inaan fahamno konseptiyo muhima bini aadamku is wada xaqiraa markii si loo fiiriyo ninka cadow in badan wuxuu rumaysan yahay inuu ninka madow uu ka sarreeyo waa sooyaal soo jireena weeye ilaa iyo maantay kuwa badani ku doodayaan ilaa iyo maantay kuwa badanu ku doodayaan ninku ama ha ahaado nin muslima ama yuuna ahaanina ninku in badan oo ka mid ah raggu sooyaalka taariikhda waxay rumaysnaayeen welina qaar bay rumaysan yihiin inay inawey ama si ay dumarka uga sharaf badan yihiin masaa'ilkaa marka diima shaqo kuma lehe waa cadalaadka ninka oo kooxaha ay ka yara awood badan tahay ayaa waxay rabtaa inay tiraahdo sababta aan kaaga yara awood badanahay kaaga yara xoog badanahay waan kaa wanaagsanahay ee diimaha ilaahay shaqo kuma laha markaan ilaahay hor tagno ilaahay gabadha wuxuu ku xisaabin iimaankeeda islaamnimadeeda caqligeeda kartideeda dadnimadeeda ayuu alla ku xisaabinayaa qiyaamo markay tagtay waxay soo qabsatay anaguna markaan alla hor tagay iyo adigu alla saasuu inagu xisaabinaya ilaahay ma odhanayo dumar baad ahayd sidaa darteed naartaad u badanaysaa sidaas ma odhanayo ilaahay subxaana wa tacaala rag baad ahayd sidaa darteed jannadaad u badanaysaa ilaahay ma odhanayo subxaana wa tacaala ilaahay konseptigan ah rag iyo dumar alla agtiisa qiimo ay u kala samaynayaani ma jirto ee waxaa diimaha iyo xagga samada ka yimido ay samaynayaan allah soo diray ilaahayna waa raxiim waa raxmaan waana caadil laqad arsalnaa rasulana bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana liyaquuma annaasu bilqist marka waa masalat alcadl waa arrin insaaniyadeed waa arrin xorriyadeed weeye marka waxaan doonaynaa oon ka rabnaa gabdhahu inay fahmaan diinkan
ilaahay baa soo dejiyey iyadana ilaahay baa abuuray wadaadku wax kasta ha u sheegee wadaadku ilaahay ugama dhawa gabadhu ninka kama liidato bal aniga waxaan ku doodaa marar fara badan gabadhu ninka way ka sarraysaa way ka sharaf badan tahay quraan iyo xadiis baan laga yaabaa inaan u keenaba marka xalaqaad gooni aan gabdhaha ka qaban doona haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku soo khatimayaa bacdamaad su-aashii ugu dambaysay laba maquulo oo aad u jeclaystay oo labadaba tilmaamaya xorriyadda iyo karaamada hadda aan ka hadlaynay mid waxaa yidhi ninkii la oran jiray maalik ibnu nebi waxa uu leeyahay wamahmaa yakun qofka insaanka horriya dumarkuu dooni ha ahaadee siduu doonina ha ahaado diintu dooni ha haysto faina alinsaana laa yafqudu في أي ظرف كان ما خصه الله به من تكريم قفكو إنسان كاهو ظروف كستana ha ku jiro rag ha ahaado dumar ha ahaado wuxuu alla ku karaameeyo oo takriim wuxuu alla ku gaar yeelay oo karaamada walaqad karamna bani aadama insaanku marra ma weynayo marka waa insaankii guud weeye taas marka waxaan doonayaa inaan saa u wada fahamno gabdhuhuna ay saa u fahmaan waxaan qodobka kale uu yahay sheekh maxamed ghazaali baa wuxuu yidhi الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل وحا وناكسن حتى وحي وناكسن أولي هدي قفك لغو قصبه ولغو خصبه قف وناكسن كنغي ميسو أرنتاس كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن سيدا هدي قفك إيمان لغو قصبه أين قفك مؤمن أغنيين أو قفك إيمان كان لغو قصبي وإسكا الشيكتة ونمؤمن أغنى قرينين أي قف كان هدي فضيلة لغو خصبه أين فضيلة نقولين محاجر قف كان وحا اسمه يخصب وحول مركا شافوا فالحرية أساس الفضيلة حريته وفضيلة والبقية وناء والبقر هذين أساس كذا وياه مركا وحان ربنا دين الإسلام هو دين التكريم بنادم كراميسي ودين الحرية ودين إنسان كحر كدفتي محوها ذكره وأنثاه رجيس يدمر كيس لبضبة ودين المساواة ودين سما يسا رجع يدمرك ودين العدل ودين عدالة سمينيسا رجع يدمرك مسلم كي يقفك مسلم كان انتبه ودين الإنسانية ودين إنسان كدنتيس يا مصلحتيس أتمت ويا كيس مسلم كي كان مسلم كان انتبه ودين المحبة والرحمة ودين حريسات يجعل ويا هدي دوران قاركود هأصورية إن الدين عيب أرنتها صوحبة كما جرى ودين التعايش مع الآخر ودين للنولاشة قفك إنك أركتي دول أما إنك أفكار دول نوع دونها هذا مركا وحان رمنا الدين سلاسة إننا كو قنعنا ذات كان أنجارسينه وحان اسمه يارينا مركا وحوية إنك أولا الحرية والتفكير حرية هي فكر صح أو قفك وسنة أفكره هي نسوي يارينا ما شاء الله إن شاء الله وسوق بقبينينا شيخ آد بعض ما هسنتهاي واحد كجرتا يعني شخصيات كجاركا أو آد دين توفانسن واقعنا الله صعدا نواندتك أرجيني إن شاء الله إن أيضا يرى كسوف الفران meelaha wiil iyo gabarba maxaan ku radaa lagu xareystay 30 sano u dambeysay qof madaxa qaaday nuguma jirin sababtan u qaadi weyna wax weeyaan maxaan ku radaa problems is dul fuulay oo midba midkii kale wax weey sii xoojiyay waxaan noogu daran marka hadda in qofkii dhaqaaqaba in yani group yara ay dusha ka ilaashanayaan ama wadanka ha joogaan oo group yara isku xiraadaan ha ahaadaan ama qurbihiisa ha joogaan oo group isku xiran ha ahaadaan intaas waxay haystaan yani telescope oo qofkii dhaqaaqo oo siraahda yani erey yani dheh oo waxun fikirka yani bini'aadanka dhaqaajinaya u bahalkiye gaashaanka u daruurayaan حتى شيوخنا قاركيد محمد كرادا مركي arrimaha society-ga aad yani ka hadashaan waad aragteen waxa idin ku dhacay oo qaarkiin waa la gaalaysiiyay kishka kamida sabab kalena looma gaalaysiinay waxay ahayd maxaan ku yiraahdaa maxaa keenay inaad maxaan ku yiraahdaa dadkii aanu intaas halka ku haynay inaad tiraahid maskaxda ka shaqaysiiya oo yani middleman yuusan idin dhexgelin idinka iyo khaaliqii idin abuurtay intaa way marka waxa inta laydin kula colaytamay I think inaysan meeshaan ku joogsanayn baan u malaynayaa laakiin goolkeen waxa weeyaan in qofka bini'aadanka ay waxa weeye uu xor u noqdo caqligiisa haddii uu ku talagalo in ilaahay caasiyo adoo qoryo ku hayana wuu caasiyaya haddii uu ku talagalo inuu maxaan ku yiraahdaa maskaxdiisa ku raaco bahalkeena
adoo isagoo aan iska warqabin inaa iska warqabin buu waxa weeyaan meel mugdiya ilaahiisa ku caabudaya kula xiriiraya marka goolkaygu marka waxa weeyaan insha allah in dhalinyaradu ka soo baxdo mugdiga iyo qaabada lagu hayo iftiinka u soo baxdo si ay adduunka ula qaybsadaan wax oo u fakeraan oo waddankoodii wax soo saar ula yeeshaan insha allah waxaan rajaynayaa axadaha firiga aad tahay sidaas oo kale in aan mawduuc ku dhiibano oo aad nagala qayb qaadatid insha allah waa ku soo qabanaynaa mac salaama aad baa mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay dhalinyaro I think in dhalinyaro badan waxa weeyaan ay ku jirtay qaar kalena ay arki doonto yani dhalinyaro kale ayaan oranay dad badan oo waxa weeyaan meesha ku jirto da' walba leh insha allah marka waxaan doonaynaa in dadku ay madaxooda ku laabtaan oo ay yani ka xoroobaan in shakhsi bilo aadan loo hoggaansamo oo ama uu ku caburiyo ama uu ku cabsi geliyo oo isagoo maxaan ku yidhaahdaye taa kaga duulaya inuusan kaa hoos bixin simbali madaxaaga haddaad adeegsatid oo gruubiska saa u dhaqmaya aad dabageshid waxaad arkaysaa wax noloshooda yani ku saabsan maaha inaysan wax kala hormarinaynin hadday dal joogaan waad aragteen dhaqaalaha iyo nolosha ay samaynayaan hadday dibad joogaan waa aragteen dhaqaalaha iyo nolosha ay samaynayaan iyo businessyada ay ku jiraan marka adigu isweydii 30 sanaad yani aad nala joogteen oo qofkii dhaqaaqaba madaxa laga kaawinaya oo magaciisa shaashada laga soo saarayo la caysanaya 30kii sano maxaa la taaban karaa aad noogu beddesheen nolosha waad aragteen maalin kasta waxa weeyaan qarax dhibaato dhiig baa yaalla ilaa heer lala qabsaday oo qofka bini'aadanka haddii la dilo oo dhiiggiisii qubanayo bannaanka yaalla markii la arko in qof walbaa iska dhaqaaqayo laakiin markii la arko يعني gabar meel soo istaagtay oo tafteed meel ka muuqatay markii la arko kama in uu dhacay maxaan ku yiraahdaa gariir inuu u dhacay wata afarta gees laga hadlaye ma isweydiisay dadkani ma dhiigay rabaan in dadka wax weey ka qubto isku darsamo togag noqdo mise fisqa bay u taagan yihiin su'aalahaas inay isweydiisin baa loo baahan yahay insha allah waa idin salaamaya ورجيني أحدها سيدان وكلا إن أن شيوخنا سيدان وكلا واقع يدين تشوفها سن إن أنه بلا منه ونلاحظه وين سلام يا شير جري هذا داودي كريسان سيد يوم بدلنا أي وأركان من دقيقتان هذه سؤال أي تيران أو سؤاله لحريرة أغلقها عن كل هذا عقيدة قفكا دين تلفتي هذا هرماركا دمان messengerka ay igu soo diri kartaan si aan intaan u gugeeyo aan marba sheekh ugu casumo insha allah ma salaama